muuse biixi cabdi wuxuu si aad ah ugu ruqaansaday in Somaliland iyo Itoobiya oo iskaashanaya ay si wada jir ah u jabeen oo Soomaaliya ay ka adkaatay saaxadda caalamka kadib markii Soomaaliya galaangal weyn ay la imaatay labadaasi wadana damacoodii badda in la gaaro Itoobiya gaarta gaashaanka ay u durugtay dawladda Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaamiyo waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qubanaha qoran oo aan maanta ku dul eegi doono arrimo xasaasi ah oo ku saabsan xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliya iyo sidoo kale Somaliland arintii badda oo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ka hadlay in Soomaaliya ay uga adkaatay Somaliland iyo sidoo kale Itoobiya oo iskaashanaya qodobadaasi iyo sidoo kale waxaanu ku eegi doonaa barnaamijkeena wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland haatan jooga oo xaaskiisa lagu xiray wadanka Mareykanka magaalada Minnesota kadib markii lagu eedeeyay inay lunsatay ama xaday lacag 1 milyan oo dollar ah oo loogu talagalay ilmaha dhibaataysan ee Soomaalida sidoo kale barnaamijkeena waxaad ku daawo doontaan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo sheegtay in argagixiso ilaa 400 gaaraysa ay duqeyn ku dishay galguduud aageeda xilli ay doonayeen in ay weerar qaadaan qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan barnaamijka ku falanqeyn doonaa ee fadlan ku soo dhawow saaxiibadaada u shaargare aynu ku bilaabano Muuse Biixi Cabdi ayaa wareysi laga qaaday afka furtay waxa uuna ka hadlay laba arrin oo xasaasi ah oo intii talada uu hayay dhacday labadan arrin ayaa waxa ay tahay mid arrimihii badda oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud talada dalka hayay ee looga adkaaday Somaliland iyo Itoobiya damacoodii ahaa inay badda Soomaaliya Itoobiya gaarto iyo sidoo kale arrin kale oo waqtigii farmaajo dhacday oo ahayd in madaxweynaha Soomaaliya oo waqtigaasi farmaajo ahaa uu ka dago magaalada Hargeysa labada arrinba sheekadooda iyo Muuse Biixi oo ka hadlayaba halkaan aan kula wadaagaya laakiin marka hore aynu ku hormarno tan farmaajo uu doonayay inuu Hargeysa uga dago ninka la yiraahdo Muuse Biixi oo arrintaasi ka hadlayay waxa uu sheegay waqti Addis Ababa la isugu tagay in Abiy Ahmed si degdeg ah ugu soo bandhigay wada hadal ay sameeyaan Muuse Biixi iyo farmaajo oo farmaajo uu diyaar u ahay arrintaas kadibna markii wada hadaladii la qaaday Muuse ka cuslaystay oo sheegay inuu u baahan yahay in Somaliland dib ugu laabto si wada tashiyo uu soo sameeyo laakiin Abiy Ahmed ayaa waxa uu ku wargeliyay Muuse Biixi in isaga iyo farmaajo oo socda ay imaan doonaan Hargeysa sidee uu xeelaystay waxa noo sharaxaya Muuse Biixi Cabdi oo arrintaasi ka hadlaya fadlan muuqaalkiisan ila daawo adood golaan haduu ogaaday mar farmaajo oo ninkii waxayay wax walba oo gahay hay sidii lagu heshiiyay oo waxa meesha ka dhacay iyo waxa isagu dan kale waa heshiiyay maya de ileen arrintu de isaga laftiisa kids xadan waxaan kolkaan ku kaalkuleed galayna waxay war balantii Ramaphosa anu ka sugeynay ayaa la arkan kicisay warkaas wuxuu leeyahay inaga isku xigna char baynu nahay wax walba oo dhawaynaa wanaagana de afkii diraasid ku hadlay waxaan u dhiibaya deetana isaga farmaajo waa saaxiib waa markii Eritrea iyagii iswatee waa kii wax walba de siiyay dekedaha wadanka oo dhan marka anna waxaan haydeen in imika iyaga ku cusub markuu uu adkaan ku dhaay aan mid ku sheego anaga xisbi iyo baarlamaan baa doortay oo cod baa lagu doortay fariintaas ma la dhiibi kara go'ah midaan laga wada hadlo ilaa aan iyaga ku noqdo iyaga iyo dalka aan tagana deetana waxa ay waay markaasuu yiri okay isagii waxa marka anagu hadana waxa la waxa baxaya madaxweynaha Nigeria markaasuu ay didiyay madaxweynaha protocol ku sii dhow yalla saada waa ma fadhina salka ka fadhiyo deetana waxaan ku war imika halkan anagu arrintaas waa arrin culus tistoorka ku qoran tahay laba fargelin karo wala madaxweyne wala wasiir talak soo tusto ina wada hadlo aduntii wanaag wala wuxuu waayahay maanta wala kala baxay kana laftiisu u bixi lahaa sidoo sheegay ardii karo ku sii way habeenimada diyaar baha dalka tubaha dikla wayar waxa waayahay aan kala baxno degdeg soo jawaab marka waan midode hay'adihi ay ku khusaysan caalamka wax goor sheekadaas marka farmaajo wuxuu yiri markii uu lahaa waa in Soomaaliland wixii gaaray laga loo garabsada farmaajo wuxuu aanu markaa tago waxaan akhriyaa khudbada ku garabsanayo wixii dhacay waan akhri kasoo fududeeyay
wakhi Wallahi. ha farmaajo laakiin wuu fududeeyey sida uu fududeyn karaayo dee ilaa xaggana barashar marka haystee dee iska yara afgobaadsi bay ahayd waayo adigu dee maya wuu yidhi inaan ciidanaha odhan buu yidhi wallahi. laakiin dee culays kala haysta ila isagaba dad baa kasoo jeeda adigaan ku daalanta taasaa keentay inaan dee dadkii o dhan idhaho reera maxay la tiri deetna abiyoo kii ku adkaystay heri hor adigu farmaajaha soo kaxayn farmaajahan la hadlo ku war ma adiga soomaaliga ninkan kusoo qaadaya oo keenaya caqli baa ina wadada iskureen cid isku keenaysa isla uu gasto wuxuu yidhi wallahi dee ninku isaga aad xur yahay inuu hadlo dee waatii muranka badan ka dhacay marka taasi hawl badan bay ahayd aad u isku heshiinay ninkii abiya markii dambe hadlan markii dhaqaaq weydaan ku war shacabka dee haya waxa xukumay aniga saadan ma yihiin awood badan ii kaadi farmaajan la hadlo ku war ma adiga soomaaliga ninkan kusoo qaadaya oo keenaya markaana wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland xaaskiisa degan wadanka Mareykanka oo shalay xabsiga loo taxaabay kadib markii lagu eedeeyay in ay qaadatay lacag 1 milyan oo dollarka Mareykanka ah oo lagu talagalay ilmaha Soomaalida ee dhibaataysan in lagu qoodiyo taas oo wasaaradda Mareykanka ee beeraha qaabilsan ay ku taakulenaysay ilmaha Soomaalida shalay ayaa gurigeeda lagu yimid marwadan oo shalay xabsiga loo taxaabay waxaa lagu magacaabaa Munaways Fidin waxaana waaxda dabagalka Mareykanka ku soo eedeysay inay tahay gabar tuuga ah oo xaday hanti qaran oo lagu talagalay in ilmo masaakiin ah wax loogu qabto sidaas daraadeed xabsiga ay ku jirta waxa ay wajihi doontaa cadaaladda kaligeed ma ahan Soomaali badan ayaa arimahan ugu horeeyay oo qaarkood xitaa 28 sano lagu xukumay kuwa kalena ay yihiin kuwa sugaya xukun sidoo kale gabadhan ayaa waxa la sheegayaa inay ka mid ahayd dadkii u ololeeyay soo saarista madaxweynaha Somaliland ninka lagu magacaabo Cirro oo xitaa ay lacag bixisay meel public ah ay ku bixisay lacagta ay bixisay ayaa la aaminsan yahay inay ka mid tahay 1 milyan ee dollar ee maanta ay u xiran tahay in ay iyadu xaday Soomaali badan oo ku nool Mareykanka gaar ahaan gobolka Minneapolis ayaa loo haystaa in lacaga aad u fara badan ay ku maqan yihiin waxaana dabagal ku haya dawladda Mareykanka oo mid u soo qabanaysa marba marka ka dambaysa waxaana laga yaabaa haatan kadib inay soo baxaan Soomaali kale oo ayaguba arrinkaasi ku jira oo la maqli doono in xabsiga loo taxaabo Muuse Biixi Cabdi wuxuu si aad ah ugu ruqaansaday in Somaliland iyo Itoobiya oo iskaashanaya ay si wada jir ah u jabeen oo Soomaaliya ay ka adkaatay saaxadda caalamka kadib markii Soomaaliya galaangal weyn ay la imaatay labadaasi wadan damacoodii badda in la gaaro Itoobiya gaarta ah gaashaanka ay u durugtay dawladda Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaamiyo hadaba arintani sida ay u dhacday xaaladaha culus ay yimid waxa noo sharaxaya madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi ninkaas uu ku caayay col baan noohay waa bisay iyaga waxooda ma jeclaan daan iyaga toos ula hadlaynin dhexgelin maayo socodkeena heshiiska waxa ka hor yimid ururka Afrika iyo ka Carabta oo ilaa dawladaha haweeneysa Mareykanka oo kale iyo u qeyshaday waayo majority-goodii Soomaaliya ee markay cabatay way dhageysteen wixii Carabta ku jira oo dhan baa horta raacay Carab sheeganayay dabeetana Afrikadii kalena waa laga howlgalay oo Masar xoogaa meesha hogaaminaysa oo Itoobiya codka Afrika hor joogsay cid kale uma joogsadeen in xarunta laga raro soo barbaskarinay haddii arrintaas ay socoto ay maqal weyn haddii sina xarunta laga raro iyo barbarkiin qaarkood marka Itoobiya arrintaa waa laga adkaaday inaga xaggeena uu ka fulay Afrika ka adkaatay iyo qayladii Soomaalida iyo Carabta ururkan Carabta intuu Carabtii aamin waayay uu Islaamka u yeeray markaas saddex conference baa isku raacay Afrika Arab League iyo Islamic Organization oo kuntan dawladda saddex hor joogtay Itoobiya waxaa tiri inaga xaggeena oo inagu dee wixii aynu ku bedelaynay heshiiska wixii aynu ku gelaynay dee gacanteenu ku jiray dee diyaarna waynu ahayno waxay u ekeyd dee dadku aduu aad baa looga falceliyey laakiin inta badan in aqoonsi iyo dee arrimihii la shaaciyey la isweydaarsaday waxaa tiri laakiin dhinaca Itoobiyaanu ka fulin taasina markaa ma filan waanunbay ka ahayd mise way yare ina ishaafalataynayeen oo xitaa aqoonsigeena diyaar uma yahayn Itoobiya
ما أنا وسام كويشيني لو ديار بانه لكن مو فرين إن أفريقيا إيه عربتي أنت سوق المدي سوق من أيها markana dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in gobolka Galgaduud 400 oo ka tirsan argagixisada al-shabaab ay duqeyn ku leysay meel lagu magacaabo El Diqo oo u dhow El Garas ay sheegeen inay isku aruursanayeen argagixisadan kadib markii dowladdu ay xogteeda heshay gaar ahaan hay'adda nabad sugidda NISA oo kaashanaysa beesha caalamka ee duqeynta ka taageerta Soomaaliya halkaasi ayaa lagu duqeeyay waxaana la sheegay in argagixisadii isku diyaarinaysay dagaalka inay qaado iyo weerarada oo 400 gaarayay ay noqdeen mid dhintay mid dhaawacmay iyo hal firxad ah oo qorshihii ay lahaayeen dowladda federaalka ee Soomaaliya ay si cad uga hortagtay arintani ayaa NISA waxa ay sheegtay in badan in ay fulisay haatan kadibna ay u qorsheysan tahay in shaqooyin badan ay argagixisada ka qabato